xildhibaan cabdiqaadir indho asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta qiimaha iyo qaayaha leh joogtaan iyo si kasta aad noo dhageysanaysaan soo dhawaada maalin wanaagsan ayaa ila leenahay subax wanaagsan sida inay soo muuqato waa nin xildhibaan ah oo wadanka Soomaaliya meel ka mid ah xildhibaan ka ah ereyga afkiisa ka soo baxayo ayaa noqday hana wareysana naga tag hooyada iyo diinta wase hooyada waa dambi mana fiicno in la isdhaho hooyada was misane waa shay dambi leh balse waxaa ka sii weyn diinta was diinta waan ognahay sida ay taada misane dambiga ka soo gaarayo misane ciqaabta qofka uu leeyahay haddana qof xildhibaan ah oo ummad xildhibaan u ah oo mas'uul ah oo wadan idil oo maanta aan garanayno muslimiin mas'uul ka ah kule diintaada was qofku uu ku leeyahayna qof marka ayada wax u geysta uusa ahayn oo wariye su'aal iska weydiiyo oo wax inuu iska wareysto rabo waay marka su'aasha meesha la isweydiinayo mise anaga inaan isweydiina u baahana waxaa waaye markii qof gaal ah misna diinta aan haysanin diinta wax uu ka sheego misna sida hadda maalin hore ay ka dhacday wadanka India oo dagaal weyn oo adduunka oo dhan lagu soo qaaday wadanka ilaa India intaas soo bilyan oo ummad ay ku nool yihiin hal qof oo ma aragtay nabiga caayay ka soo baxay misna diinta caayay marka ayada laga sheegay haddana intaas oo dagaal nin kastoo meeshuu joogo kala dagaalamay ninkii Soomaaliyeed ee muslim wadan muslim Soomaaliya saan ognahay waa wadan muslim ahaa haddana xildhibaan ahaa maanta xil dad u hayo haddii erey noocaas u afkiisa ka soo baxo sidee rabnaa in ma artay in loogu falceliyo mise loogu jawaabo misane qofkaas uu ma artay dambiga intaan la eg uu galay waayo diinta qofkii caayay maxaa kaloo u dhiman misane maxaa kaloo uu leeyahay waay haddii aan muslim nahay diintaana inaan difaacnaa leenahay diintaana inaan dagaalnaa leenahay inaan u maartay u dhammaano masana u dhiig waxna ayaa leenahay inaan maartay sida alla sidii aan diintaana ku wanaajin lahayn falkeed inaan galno waay balse haddii ay noqoto inay maanta annagaba diintaana aan ku soo noqono oo Soomaali haddaan kan dhowr jeer waan arkay masana baraha bulshada dhowr jeer annaga waan aragnay in qof uu ma aragtay diintii uu gafo masana nabiga uu gafo haddana annaga dhaxdaanada iska joogo oo dad taageera meesha uu ku haysto maanta waxa dhacaysa waxa waaye inay maanta mas'uuliintaanadii mise dadkii annaga aan soo dooranay in afkiisan wax noocaas uu ka soo baxayo wax marka ayada daba kici rabo misane su'aalay rabana malaha marka intee u soconaa haddii qofkii wixii uu falkii uu ku dhaqaaqay marna laga falcelinaynin misane laga weydiinaynin misane laga wixii marka ayada uu ku madna alla marinaynin marka waxay noqotay diintii inaan iskaga jeesjeesano mise diintiiba kow aan ka lahayn wax danna aan ka lahayn aysan jirin waayo qofkaas waa qof diintii u gafay oo maanta diintaada was leh diintaada was marka ayada hooyada was diintaadana was hooyada iyo diintaada was macnaha haddii wax kale oo qofkaas uu ku reebtay ma jirto marka ayada ninkii meesha taagnaa waa nin wariye qof uu wareysanayay inaad iskaga aamusto oo shub ka tiri waad leedahay inaad iska dhaafto oo iskaga tagto waad leedahay inaad marka ayada erey kale aad isticmaasho ereyga af Soomaaliga waa weyn yahay qofka si kale waad u caani kartaa si kale waad dhihi kartaa hadiiba kolley aad caanayso oo maanta qofka caay afkiisa inaad caayso aad ugu talagashay laakiin inay haddii hooyada iyo diintaada was qof aad ku tiro adigoo qof mas'uul annaga daawanaynana aan maanta aan ka fiirsanayno indhaha horta waa nagu dambi mana haboono qofka say ahne kolley ani sidii ma artay meeshii la marin lahaa iyo wixii lagu xukumi lahaa ani ma garanahay balse qofka in saa looga tago asagoo qof mas'uul maanta oo annagana mathalayay su'aal yar oo qof uu nin wariye uu weydiiyay mas'uul uu weydiin rabay su'aal ayaan ku weydiin rabaa ayuu intaasoo erey ayuu u isticmaalay marka ninkaas qof muslim oo ilaahay ka cabsanaya ayuu yahay horta Soomaali waan nahay bas
balse daraad waxaan arkaynay wiil yar oo Turkiga joogo oo diintii waan ka baxay leh oo maanta diintii waan ka baxay uu leeyahay. Waan aragnay dhowr Soomaali mise dhowr qof oo Soomaali oo sheeganayso inay diintii ay ka baxeen, taas oo annaga haddana ay nagu naxnool yihiin oo aan ku faraxsannahay oo aan indhaha ka daawanayno. Marka su'aasha meeshii aan inaan isweydiino loo baahan yahay waxaa waaye, haddii diintaannagii waa loo soo dhammaaday, waa intaasoo dagaal, intaasoo rafaad in loo soo maro waan ognahay, annagayna soo gaartay maanta, annagayna la taagan tahay. Wixii ay naga mudneed ma siinaynaa misana waay? Waayo warka ma heeno qof intaasoo jeer baa diinta dhexdaanada loogu gafaa. Maalin dhaweyta ayay ahayd nin nabiga ku dhex caayay sida la sheegayay baraha bulshada TikTok live soo ku jiro, asagoo markaa ayada hal ma ahan, laba ma ahan, way badan yihiin. Haween kasta waan daawanaa, mar kastana waan daawanaa, waana ku taageersanahay, waana iskaga aamusnaa annagoo og asxaabatumeeno. Hadda maanta waxay taaganta waxaa waaye nin xildhibaan oo annaga niga mas'uul oo wadan Soomaaliya oo aan ognahay hadda xaaladda uu maraayo ka mas'uul haddana eri noocaas isticmaalayo annagana aan ku fiirsanayno. Dad uu xildhibaan u yahay oo maanta baarlamaan u dhex fadhiya oo maartay uu xaqooda inuu ka doodo uu rabo, diinta xaqeeda inuu u doodo uu rabo, ayaa eri noocaas hadda maanta ku hadlaya mise eri noocaas afkiisa ka soo baxaya, wax ka falcelin rabo mise u joodeen inay noqonin way u eg tahay. Marka su'aasha meesha taala ninkaas maxaa ku habboon? Sidee la yeeli karaa? Maxaa intee la marin karaa? Sidii ninka ereyga afkiisa ooga soo baxay hooyo iyo diin aan kala liidanin, inkastoo haddii hooyo qof bini'aadan ay tahay loona baahnayn erey noocaas in la dhaho, balse haddii hataa la dhaho qofkii uu raali gelin ka bixin karo uuna ilaahigiisa dambi dhaaf weydiisto, ay ma artay ay ka fududahay diintii la haayo. Marka haddana wixii ayada ahayd qof jaahil ma ahan, qof iska ma artay dhalinyar mise qof waa ilmo yar ma dhihi karno. Qofkan waa qof iska doqon ma dhihi karno oo dee aqal xumi baa u geysay. Qofkan diin xumi baa u geysay ma dhihi karno. Waa nin mas'uul oo Soomaali u tirsan, oo xildhibaan oo meel fadhiyo, oo ummadda Soomaaliyeed maanta mathalayo, dhinac walbana inuu ka ma artay ka difaac loo baahan yahay. Xaq diin waa mid ah haddii kollay ku dhaartaan oo inay difaacaan dalkii iyo dadkii iyo diintii way ku dhaartaan oo kitaab baa loo dhiibaa way ku dhaartaan. Laakiin diintii maanta aan difaaci lahaa mise aan u dagaali lahaa anigoo maanta xilkeyga gudanayo, haddii aan ku soo joosto oo maanta erey noocaas oo kale anigaba aan subinayo, marka wixii aan u dhaartay maxaa waay? Wixii aan u dhaartay maxay tahay? Sideen ugu dhaartay anigoo subinayo erey noocaas oo kale afkeyga uu ka soo baxayo, balsene uu ila fudud yahay, mise afkeyga ka soo baxeeda waxay dhib weynba uma ahan, haddana waa ninkii ku dhaartay. Marka su'aasha aan isweydiinayno waxaa waaye, qofkaas muxuu mudan yahay, muxuuna ka mudan yahay sharciga Soomaaliya u yaalla? Wa calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu.